kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin shirweynaha G20 ayaa ka furmaya magaalada Buenos Aires halkaas oo ay hogaamiyaasha adduunku kaga aarisan doonaan arrimaha ganacsiga amniga iyo isbeddelka cimilada warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah kiisaska jadeecada dunida ayaa korortay waxa ay khubaradu ku tilmaameen inay sabab u tahay wararka been abuurka ah Lesotho oo heshay dalag lacag degdeg ah laga helo sharciyeynta beeraha maandooriyaha marijuana ayay beeralaydu faa'iido weyn ka filayaan hami anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iiga yeedha waa Axmed Cali Cigaal oo aan qaar ka mid ah heesiisa wax ka weydiinay kala soco BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka جمعة ونكسن داود يالو أنا محمد عبد الحلال وإذن لسه عسيني برنامج كعاوة عن كوبلابة هجامياشا وجو قوة بدن دنيا أو كلمة تلايا لباتن كدل وجو دقالها سرية الدنيا أيها يسوي من دلك أرجنتينا سيوجا قيبقة شروينها G20 أما جا لباتن قضبة بدن أيها لجو فلانقيد دونا شركة كواس وأي كمديهن جناعسيجا إسبدل كعملة الدنيا يقلاف كيوكرين يروشكا شركة أيها إلا يمين كسيو ونكسن الصعدة هجامياش كندا أمريكان كي مكسيكو أيها صحيحي هشيس عصب كواسي أو البدل دونا كاسي أو بدل دونا أن يراه هذا هشيس كي جناعسيجا حرتها يكجري وقوي أمريكا مدة أفر لباتن كسنة هذا لصور دافع The USMCA is the largest, most significant heshiiska ganacsiga MCA Mareykanka waa midka ugu weyn uguna casrisan taariikhda wadamadeena oo idil si weyn ayay uga faa'iideystaan sida ay u egtahay waa heshiis ganacsi kii ugu weynaa ee la sameeyay ebid heshiiskan waxa uu Mareykanka u keeni doonaa shaqooyin mushaar sare leh wuxuuna u horseedi doonaa in Mareykanka ay dhoofiyaan alaabo badan oo ay ka mid yihiin wax soo saarka beeraha iyo warshadaha range of sectors including our farming, manufacturing and service industries. وهاج هدبه محي لباتن كان دل وكل ميان أرجنتينا هدي أنو إجنو لباتن كان دل وحكي مادة بقول كيبا شن سدتن دقالها أدونك يولبا سدح ميلود لبا ميلود دتك دونيدن كنول حقيها جودة قرامة مدوبي أي فرستي شركة إسبدل كعملة وحا يري إسبدل كعملة ودبات عالمية وأنو كفش لاني لكن الجندياش دنك سياسة أي أبدان تهاي إن شركة لا يسقو قبل دونه عايشة أفرح أيها فافاهنيسا shirarka caalamiga ahi waxay u muuqdaan kuwa diiradda lagu saaro hal nin oo kaliya hadalladiisa fariimaha Twitterka iyo waxa uu sameeyay saakay wuxuu madaxweyne Trump la kulmay madaxweynaha Argentina ee Macri muddo dheer ayaan saaxiib la ahaa Mauricio sanado badan dadku ma ogataa in dhalinyaro oo qurux badan ayuu ahaa balse madaxweynaha Mareykanka kama helo shirarka dadka badan shirkanse wuxuu Trump ka mid yahay 20 madaxweyne ee isugu tagay Buenos Aires mid kastana wuxuu shirka la tagay qorshihiisa iyo danihiisa ku aadan dunida dhanka kale Theresa May waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Britain ee ka qayb gala shirkan iyadoo ka nasan doonto wada hadalladii Brexit mawduuca ugu weynse wuxuu yahay dagaalka ganacsi ee ka dhaxeeya madaxweyne Xi iyo madaxweyne Donald Trump waa kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii cashuuraha cusub lagu soo rogay alaab ku fadhida balaayiin dollar sidoo kale madaxweyne Putin ayaa wajihi doona su'aalo adag oo ku aadan qabsashadiisii markabka Ukraine madaxweyne Trump ayaana sheegay inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Ruushka ilaa la xalliyo arrinkan dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Mohammed bin Salman ayaa isna ku howlan dib u dhiska sumcadiisa kadib eedayntii ahayd inuu ku lug lahaa dilkii Jamal Khashoggi Theresa May ayaa sheegaysa inay filayso baaritaan buuxa hase yeeshee xiisadahani ka taagan dunida aawadood ayay madaxda Yurub u sheegeen inay muhiim tahay in la isugu wada yimaado shirka si xal loo helo ma jiro wadan ama gobol kaligii samayn kara shirkan G20 ayaan uga wada hadlaynaa aaraada kala duwan ma jirto wada kale oo aan ka ahayn xiriir loo dhan yahay dagaal ganacsi isku dhac ciidamada badda xiisadaha Sacuudiga iyo ka qaybgalka Trump ee shirkan lama filayo in shirkani uu si degan ku dhamaado balse su'aashu waxay tahay maxay madaxdani ku heshiin karaan
وهاجاك si weyn ayay u korortay tirada kiisaska jadeecada adduunka oo dhan iyadoo dalal badan ay ka dilaaceen kiisas daran oo kordhayay sanadkii hore warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa muujinaysa kororka iyo meelaha uu ku badan yahay Yaasmiin Axmed ayaa ka waramaysa jadeecadu waxay ka mid tahay cudurrada si degdeg ah u faafa inta badan dadka cudurka qaado saameyn xun ay u keentaa laakiin kiisaska aadka u xun waxay keeni karaan dhibaatooyin badan sida indho la'aan dhibaatooyinka maskaxda iyo dhimasho barnaamijyada talaalka ayaa lagaga hortagi karaa cudurka sida midkan ka socdo xaruntan oo ku taalo Sierra Leone hase yeeshee warbixin ee soo saartay ururka caafimaadka ee WHO ayaa tilmaamaysa in cudurka jadeecada soo badatay gaar ahaanna waxay ku soo bateen Latin America iyo Europe khubarada ayaa sheegaysa in burburka nidaamka caafimaadka sida dalalka Venezuela ay sababtay kor u kaca cudurka waxa kale oo kor u kaca u keenay wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah talaalka waxaynu arkaynaa in xitaa waddamadii hodanka ahaa ay ku badanayaan cudurkan ee jadeecadu oo uu ku fidayo dadka dhexdiisa taasina waxay tahay mid ka timid iyada oo dadkii ay ka soo maagayaan xaggii talaalka cilmi baarayaashu waxay warbixinta ku muujiyeen in cudurku ay waddamo badan si xun ugu dilaacay in ka badan 170,000 oo kiis ku saabsan jadeecada ayaa la soo sheegay sanadkii 2017 waxaana ku ziyaaday in ka badan 30%. laakiin ururka caafimaadka ee WHO ayaa qiyaasaysa inay tirada dhabta ah ee ku dhowdahay 7 milyan wuxuuna cudurka dilay in ka badan 100,000 oo qof sanado badan dadka jadeecada qaada ayaa hoos u dhacay laakiin warbixintu waxay sheegaysaa in isbeddelka ay ku kooban tahay gobolada galbeedka ee Pacific saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay arrintan tahay niyad jab sababtoo ah waa cudur si fudud looga hortagi karo waa hagaag bal markan haddii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa hay'adda carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in 3 ka mid ah carruurta ku nool Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo warbixintooda ugu dambeysay UNICEF waxa ay sheegtay in 1.5 milyan oo carruur ay u baahan yihiin cunto biyo guryo la dago iyo dugsiyo la dhigto waxa ay sheegaysaa in mid ka mid ah 4 carruur ay ku nooleen xeryo barakac kumanaan kale ayaa la sheegaya inay wajahayaan rabshado galmo Ukraine waxa ay dalkeeda ka mamnuucday inay soo galaan ragga Ruushka ay da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 60 sano madaxweyne Petro Poroshenko ayaa sheegay in ay tani tahay si looga hortago hanaan uu ku sheegay ciidamada gaarka loo leeyahay xukun degdeg ayaa lagu soo rogay qayb ka mid ah Ukraine toddobaadkan kadib markii Ruushku uu qabsaday 3 markab dagaal oo laga leeyahay dalka Ukraine oo ku sugnaa xeyndaabka la haysto ee Crimea Ruushka ayaa cambaareeyay xayiraadda laakiin waxa uu sheegay inaanu ka jawaabi doonin aqoon-yahano ka socda jaamacadda Scotland ayaa sheegay in haddii si toos ah loo mamnuuco bacaha ay waxyeello kale ku imaan karto deegaanka aqoon-yahanadu waxa ay qireen in ay jirto baahida degdega ah ee loogu baahan yahay in la yareeyo saameynta bacaha hayeeshee waxa ay sheegeen in haddii lagu bedelo baakooyinka quraaradaha iyo biraha ay deegaanka u keeni karaan dhibaatooyin hor leh marijuanadu waa maandooriye marar loo isticmaalo dawo haddaba midda noocan ah ee dawada loo isticmaalo waxa ay door weyn ka ciyaartaa suuqa caalamka oo dhan iyadoo uu dalka Lesotho ka faa'iido balaayin dollar shirkada caalami ah ayaa dalka ku soo qulqulaya kadib markii sanadkii hore dawladdu ay fasaxday beerashada iyo isticmaalka maandooriyaha marijuana ee dawada loo isticmaalo Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya Lesotho waa dal yar oo ku yaala buuro dushood waxaana ku wareegsan dalka weyn ee South Africa inkastoo ay u muuqato wax yar Lesotho waxa ay balaayin dollar ka faa'iida soo saaridda marijuanada dawada loo isticmaalo sanadkii tagay waxa ay noqotay dalka Afrika hormuudka u noqday sharciyeynta in marijuana loo adeegsado dawo ahaan dawladda waxa ay dhowr shirkadood oo caalami ah u fasaxday beeridda iyo dhoofinta marijuana waxa ay soo jiidatay shirkadaha Canada kuwaas oo qiimaha cimilada iyo shaqaalaha raqiiska ah uga faa'iideysanaya ballaarinta ganacsigooda sanadkan shirkadada Supreme Cannabis waxay Madigro ku maalgashatay 10 milyan oo dollar oo boqolkiiba 10 ay ka faa'iideyso ganacsigan Lesotho sharciyeyntan waxay ka faa'iiday ganacsigan deegaanka cimilada biyaha nadiifka ah ee dhulka adablaha iyo bacriminta kuwani oo dhami waxay ka dhigeen
dhul ku wanaagsan beeridda dalagga. mambo tuloha waxa ay marijuana beeraysay sannado badan lacagta ay ka hesho waxa ay ku quudisaa nafteeda iyo qoyskeeda. mambo iyo kuwa badan marijuana waa dalagooda ugu qiimaha badan gaar ahaan suuqa madow ee South Africa. sidan ayay noloshayda ku tiirsan tahay. waxaana ka helaa lacagtan carruurta iskuulka uga bixiyo. marijuana la'aanteed nolol ma jirayso. shaqo kalena ma haystii. kan waa dalagayga. tuuganimadana sidan baa iiga fiican. beeralayda yaryar sida mambo soo saaridda dalagan qaaliga ah waa wax aysan hore ugu fikirin. helidda fasaxa beeritaanka waa $10,000 lamana ogola wasaqaynta hawada balse dowladda waxa ay sheegaysaa in la dhimayo qiimaha ruqsadda beeralayda. waxaan go'aansanay wax ka beddelidda shuruucdan si loo fududeeyo soo saarid badan iyadoo la dhimay qiimaha shatiyada. dhowr dal oo kale oo Afrikaana ayaa sharciyey marijuana si dawo iyo madadaalo looga dhigto. dalkii ugu horeeyay ahaana Lesotho waxa ay filaysaa hogaaminta beeraha dahabkan cagaaran. وهاجاج مرة البوحة نجلس سعون كرتان BBC Somali Facebook فضلاً هذه BBC News Somali هل كاسي واد كهلي دونتو مقالة فلقين دير هذا يوررك أجوا وين سيادوها شورركي ودن بسومالي يا عالم كنا نجلس على BBC Somali تويتر إيو إنستغرام ولي waxaa inoo soo socda oo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan barnaamijkii toddobaadkii teknoolajiyadda iyo shirkadda Uber oo in ka badan $1 milyan lagu ganaaxay iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ee qadar yar oo nasasho ah. habeen wanaagsan mar labaad daawadayaal wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waniga waa maxamed cabdi xaraare baladin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. shirweynaha G20 ayaa ka furmay magaalada Buenos Aires halkaas oo ay hogaamiyaasha adduunku ka arisan doonaan arrimaha ganacsiga amniga iyo isbeddelka cimilada. kiisaska jadeecada dunida ayaa korortay waxa ay khubaradu ku tilmaameen inay sabab u tahay wararka been abuurka ah. cilmi baarayaal ayaa soo saaray qalab sii saadaalinaya xilliga ay bilaabanayaan cayayaanka baabi'inaya beeraha Afrika ka oo saameeyay dalagii u soo go'i lahaa beeralayda saboolka. qorshahan cusub oo looga hortagayo xasharaadka waxaa la filayaa in hanaankan saadaalinta la sii hormariyo lana gaarsiiyo ilaa 20%. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa faahfaahinaya. George Muwambe waa dhakhtar dhirta. wuxuu booqanayaa magaalada yar ee Kimani ee gobolka Rift Valley. wuxuu daaweeyaa dhirta ay cayayaanku baabi'iyeen. galleyda ay beeralayda abuurteen. waxaa cuna tixri yar yar. isagoo adeegsanaya ab wuxuu sheegayaa nooca xasharaadkan. wuxuuna ka tala bixinayaa sida ugu wanaagsan ee lagu hortagi karo. Due to the increased income in my farm, waxaa sare u kacay dakhliga qoyskayga. carruurtaydana waxay aadi karaan hadda iskuul fiican sababtoo ah dakhli joogto ah ayaan ka helnaa wax soo saarka beeraha. sidoo kale beertayda iyo gurigayga way isbedeleen. waxaanna heli karaa waxyaabaha aasaasiga u ah qoyskayga. dhanka kale ee dunida xarunta weyn ee kombiyuutarada xogta ee Oxfordshire hay'adda cirbixiyaanada UK ayaa isku dayaysa in ay soo saarto wax u fiican beeralayda. qorshaha wuxuu yahay in la adeegsado akhbaaraadka dayax-gacmeedka si loo sameeyo hanaan fududaynaya in asbuucyo ka hor la ogaado cayayaanka beeraha baabi'in kara. maabkan wuxuu muujinayaa heerkulka dhulka oo ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhalashada caabuqyada. beeralayda waxay si buuxda ugu tiirsan yihiin dalaga. waa in la saadaalin karo badbaadinta dalaga iyo in beeralayda ay carruurtooda iskuul geyn karaan. waa la samayn karaa haddii aan yarayno saamaynta cayayaanka taasoo hadda aan aragnay. macnaha wuxuu yahay in laga caawiyo ka gudbidda faqriga. balse si hanaankan uu si wanaagsan ugu shaqeeyo cilmibaarayaasha Oxfordshire waxay u baahan yihiin xogta beeraha. Patrick Kamala waxa uu ka mid yahay koox saynisyahan ah oo ururinaya xogta heerkulka iyo huurka ee maalin kasta. beeralaydan
sida lilinian wanyama hadda waxay helayaan digniinta xilliga uu cayayaanku imaanayo wayna ka sii digtoonaanayaan lacagta ay iyada iyo beeraleyda kale ay meel dhigtaan iyo cuntada dheeraadka ee ay soo saaraan waxay isbeddel weyn u yihiin naftooda iyo midda bulshadooda caawa toddobaadkii tiknoolajiyadana waxaanu idinkugu haynaa waxaa ka mid ah shirkadda Uber oo la ganaaxay New Zealand oo loo diiday shirkadda mobilada Hawaii Shiinaha iyo qodobo kale waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir shirkadda tagaasida Krayse ee Uber ayaa ay ganaaxeen dawladaha Ingiriiska iyo Hollandiisku milyan iyo bar dollar kadib markii ay xafidi waayeen xogta malaayin ka mid ah macaamiishooda sanadkii hore ayay qirteen Uber inay $100,000 siiyeen budcadda jabsata kombiyuutarada si loo tirtiro xog ay hore uga xadeen New Zealand ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee diida sharikadda Shiinaha ee Hawaii in ay qalabayso shabakadda moobilkooda waxaanay u cuskadeen amnigooda qaranka inay uga warwarsan yihiin hore ayaa Mareykanka iyo Australia ay u hor istaageen shirkaddani Hawaii ayaa leh iyagu waxaanu wadnaa waa horumar iyo kalsooni shirkadda gawaadhida heerka sare ee BMW ayaa soo bandhigtay gawaadhi cusub oo korontada ku socda iyo qaar kale oo iswada bandhigga Los Angeles ee gawaadhida ayaa lagu soo bandhigay gudoomiyaha shirkadda Harald Kruger ayaa sheegay in gawaadhidooda elektrigii ay la tartami doonaan kuwa shirkadda Tesla ugu dambayntiina makhaayad ku taala Nepal oo la yiraahdo Naulo ayaa waxay noqotay goob hooy u noqota digitalka waa qalab casri ah oo shaashada ayaa dalabka ka samaysanaysa dabeetana robotyo ayaa dalabka ku keenaya oo ku adeegaya robotyadu hadalka ay yaqaanaan inkastoo aanay sidii mutalabiinta u gacan fududayn وهاجاك هدي أنو إجنو وررك عيارها إعاونة وحا كمدة وحا جرا عيارة كله أو لوجو هرتدميو هريال كإنجليزكا وحا كرمدا مهم كمدة مانشستر سيتي إيو بورنموث أحدنا وحا وذي عيار دونا أرسنال يوتنهام ليفربولنا وحا إلا عيار إسا إيفرتون انت هرنا وحا عاو كارديف أي مرتقلين إسا وولفرهامبتون تابراها مانشستر يونايتد هوزيه مورينيو ayaa sheegay in Alex Sanchez uu garoomada ka maqnaan doono muddo 6 isbuuc kadib dhaawac muruqa ka soo gaaray 29 jirkan oo ah weerarka dalka Chile ayaa dhaawac ka soo gaaray tababarkii Khamiista xaddiga dhaawaca ayaa la filayaa in lagu ogaado baaritaan dheeri ah laakiin Mourinho ayaa sheegay inuu muddo maqnaan doono guddiga caalamiga ee Olombikada ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan qaamka maamulka iyo maaraynta maaliyadeed ee ururka feerka caalamiga ah ee adduunka waxaa la sheegay in la joojiyay qorshe ciyaaraha Tokyo 2020 lagu qaban doono kaas oo ay waaxda hantidhawrka Mareykanka ku eedeysay inuu xiriir la leeyahay shabakado abaabulan oo kala dambiye caalami ah marka aad maqasho Axmed Cali Cigaal waxaan filayaa in badankiin aadan su'aal ka qabin qofka uu yahay dhawaan ayuu dhismahan Broadcasting House inagu soo booqday waxaana wax ka weydiinay qaar ka mid ah taariikhda heesaha uu qaaday iyo qodobo kale waxaan hadaba caawa idinkaga tagayaa waraysiga hobalka iyo Cismaan Cabdi Xasan oo ugu horreyn weydiiyay waxa keenay dib u dhaca la sheego inuu ku yimid fanka Soomaaliyeed ee xiliyadan dambe waxa weeye dal walba ama dad walba waxa kor u qaada oo dhisa oo macna u yeela waa dadka wax u bartay marka inaga dib professoradeeni u raadin lahaa dhaqaale fanka ama fanaaniinta dhisi lahaa waxba uma ay qabin iyaga calooshooda u shaqeysta in dawladii waxba uma qaban karto iyadii baan weli taagnayn oo waxa maanta Soomaaliya ka jira wada ogtahay culimadiina waxay leeyihiin waxba waa la isku cadaabiyaa laga cararo ولو دي عذابته إلهي ليه هاي وعند العذاب إلهي ونوجي هاي وجمت شيء إن علماء أذينيو واتان كويلو علماء واتشعلنا هاي
magacyo kastoo ay leeyihiinba waa daba joognaa waana daba joogaynaa waa ku helinaynaa waa quluubta iyo qalbiga iyo maskaxda jecel haddaan dhaqaale loo helin haddaad iminka BBC da ka shaqayso oo aadan bariis aad cuntiyo meelaa seexata haysan weli miyaad warsan lahayd caawo marka kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwa hadda fanaaniinta soo kacay intaba waxaa haysata dhaqaale la'aan intaba waxaa haysata caawina la'aan cid caawinaysa iyo cid u naxaysa ma haystaan marka murtidii caawin la'aantaas ayadana la tagtay dowlad la'aan iyo caawin la'aan iyo dhaqaale la'aan baa la tegey waa tahay axmed heese badanaad qaaday halkaana kuma soo koobi karno haddaan mid ka soo qaado walaashay gacalisooy heestaasi inoo sheegi kartaa macnaha ka dambeeya aniga dhibaata igu dhacday waqtiyaasha aan soo dhaafnay waqti ka mid ah dhibaatadii ugu dhacday waxay ahayd mid macnaha aan dhakhtarada Soomaaliya waxa looga qaban karin gabadh aan walaalanahay oo la yiraahdo Zainab Cali Cigaal oo degan dalka Switzerland ayaa ii soo dirtay fiisihii iyo lacag badan iyada ikhaysay oo geysay dalka ay degan tahay dabeedna dhakhtar bay dhigtay lacag aad u fara badan baa ay ugu bixisay in lay daweeyo markii aan caafimaaday ayaan waxaan ku fekeray maxaad walaashaa ugu abaalmuddaa lacagi macna ma samayso laakiin maba haysid oo axmed oo lacag ma haysid kow meel inaad ka sheekayso inaad qalbiga ku hayso waxaasoo dhan wax ka weyn raadi oo maxaad gabadhii abaal uga dhigtaa alla ilahe hees taariikha oo miyaa gabar ninna walaashi u heesay may alla ilahe hees waxa ay tahay aad ku sheegaysid qiimaha ay leedahay walaalnimada macaankeeda ay ku tustay alla ilahe wiilyacaana baan noqee waxbaan kuu sheegayaa adduunyadu waa wilwilad hijradu waa kala wareeg wacdana baaxadegiyo wallayl baa lagu jiraa walaashayga alisoy axmed muddaad fanka ku soo jirtay waxa ugu weyn oo aad aaminsan tahay as fanaan axmed ahaan in lagugu xusuusto maxay tahay qofka markuu maqlo maanta axmed cali cigaal waxyaabaha uu ku xusuusanayo ama aad jeceshahayba in lagugu xusuusto horta midoogow fanaanku isagu isma yaqaan waxaa yaqaan fanaan walba dee dal walba caalamka ku yaala waxaa yaqaan shacabkiisa marka anigu dee waxa la igu soo xasuusanayo maba oran karaba waxaa jawaabtaas waa tii shacabka mahoygii jacaylkee hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa mahoygii jacaylkee hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa habaykii taariikhdiyey maalintii hilaadiyey haatan saacadday tahay